بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كيس صدحات circular motion إن شاء الله تعالى. عشر كم حنكو قادنينا banked curves. surfaceska object-yada ay marayaan ama wadooyinka walxuhu ay soconayaan qaarkood waxaa laga yaabaa inay noqdaan bila friction, qaarkoodna inay friction yeeshaan sababo jira awgeed. inta badanna friction bay leeyihiin. Okay, bal haddaynu soo qaadano frictionless surface, meel ama dul bila friction ah, matalan kanba ka soo qaado gaarigaasi socodkiisu hadday laamiduna tahay mid isku siman siduu noqonaya. waxaa laga yaabaa gaarigaasi awood uu ku socdo inuu waayo socodka waxa suurageliya waa frictionka. laba force mar walba way jirayaan, laga maarmaan baanay noqonayaan. mid waa force-ka la yiraahdo normal force-ka ee wadada ay kor uga hayso ama surface-kan uu dul maraya uu kor uga hayo, midna waa weight-kiisa. labada force mar walba way jirayaan, laakiin gaarigaasi haddii surface-kaasi bila friction yahay waxaa laga yaabaa inaanu socon ama uu taagnaado. ka waran gaarigu hadduu marayo goolad wado circular ah, labadii force meesha way yaalaan, waa normal force-kii oo xoogga ay surface-ka ama laamidu ay kor uga hayso gaariga iyo weight-kiisii, labadaasi mar walba meesha way yaalaan. gaarigaasi ma dhaqaaqayo. haddii laakiin lagu soo daro friction oo laamidu ay yeelato friction, dee frictionku waa waxa siinaya centripetal force-ka markuu weliba goolad marayo. gaarigaas markaa uu dhaqaaqaya, inuu dhaqaaqo iyo inuu goolada maraba waxa u suura gelin karaa waa frictionka. Okay, haddii wadadii laga dhigay mid dhinacu janjeedha, if the road is banked, haddii wadada la janjeediyo oo dhinacna kor loo qaado dhinacna uu hoos u yeelo, gaarigu still uu leeyahay labadii force. waayo gaarigii kor baa loo qaaday, dhinac baa la janjeediyey, kor baa loo qaaday, dhulkii wuxuu ka kacay xagal ama angle la yiraahdo angle theta. Okay, normal force-ku waa xoogga laamidan ama surface-kan uu dul jooga uu kor uga hayo ayuu normal force-ki noqonayaa. normal force-kaasi maadaama uu gaariga dhinac u janjeero, laba component buu yeelanayaa, component vertical ah iyo component horizontal ah. labada component buu runtii yeelanayaa. haddii uu leeyahay angle ama angle theta, hadduu halkaas soo galo tusaale ahaan oo kale, vertical component-ka waxaa la odhanayaa f cos theta, ama wuxuu noqonayaaba dee f cos theta maadaama theta angle-ka uu noqday. horizontal component-kuna wuxuu noqonayaa fn sin theta. vertical component-ku waa fn cos theta, horizontal component-kuna waa fn sin theta. oo normal force-ka labadiisii component ay labadaas kala noqonayaan. wax kaloo isaguna meesha aan ka maqnayn gaariga weight-kiisa oo isagu had iyo jeer downward ah, oo weight-kana waxaa lagu helaa m times g ama mg ayaa weight-kana lagu helayaa. isagu marnaba meesha kama maqnaan karaba. marka waxaynu odhan karnaa maadaama ay isku beegan yihiin fn cos theta iyo weight-ku waa isleegyahay, waa laba isleeg. at the same time gaarigii wuu gooladaynayaa, wado goolad buu marayaa, wadaduna dhinac bay u janjeedhaa. marka xaguu ka helayaa surface-kana waxaan waa frictionless surface, waa surface bila friction ah. haddana gaarigan wuu soconayaa, sidii kii hore maaha mid taagnaanay, oo gaarigan wuu soconayaa. waxa u suura gelinaya ama siinayaa maxaan ku dhahdaa horizontal, waxaan jeedaa centripetal force-kii waxa siinayaa waa normal force-ka component-kiisa horizontal-ka ah ama fn sin theta ayaa toward center tilmaamaya. marka wuxuu haystaa component force ah ama normal force-ka component-kiisii oo center seeking force ah, wuxuu u gelayaa halkii frictional force-ka. marka kan laamidu hadday dhinac u janjeedho looma baahnaba frictional force, gaarigaas xawaare aad u sarreeya ku soconaya. marka banked curve-ka waxyaabaha uu ka helaya waxaa ka mid ah kow, the car can move fast
without requiring frictional force. gaadhigu wuxuu dhaqaaqi karaa xawli ama xawaaro sare isaga oo aan u baahanaynin frictional force. oo maxaa bedelaya frictional force-kii? Horizontal component of the normal force gives the centripetal force needed. Horizontal component-ka normal force-ka waa component-ka jiifutaha ah ee normal force-ka oo ah Fn sin theta ayaa siinaya the centripetal force needed. Centripetal force-kii loo baahnaa waayo awal centripetal force-ka waxaa siin jiray frictional force-ka, marka halkii frictional force-ka waxa u gelaya horizontal component-ka ayaa u gelaya. Okay, waxaynu tilmaanay Fn cos theta iyo weight-ku inay isleeyihiin, marka Fn cos theta weight-kay ku leegtay. At the same time centripetal force-kiina wuxuu leegaaday maanta Fn sin theta, marka waxaynu odhanaa Fn sin theta-na waxay leegtahay Fc ama centripetal force ayaynu leegtay. waxaanu garanaa laakiin Fc ama centripetal force-ku inuu leegaa mv square divided by r, marka halkiisa waxaan soo gelinaa mv square divided by r, ama macnaheedu waxay ka dhigan tahay dee Fn sin theta waxay leegtahay mv square divided by r bay leegtay. Okay, haddaynu nidhi Fn cos theta waxay leegtahay mg, halkaa waxaynu kala soo bixi karnaa Fn inay leegtahay mg divided by cos theta, oo markaynu dhinac walba cos theta u qaybino aynu Fn subject of formula ka dhigano ee aynu la soo baxno. Okay, Fn sin theta-na waxay si toos ah u leegtahay centripetal force baynu nidhi oo mv square divided by r ah. iyadana Fn haddaynu subject of formula ka dhigano waxaa halkan inooga soo baxaya Fn inay leegtahay mv square divided by r sin theta. waxaynu arkanaa Fn labada xaaladoodba inay laba qaacido kala duwan ay kala leegtahay, marka that means mg cos theta iyo mv square divided by r sin theta way isleegihiin maadaama labaduba Fn leeyihiin. labadoodan markaa gaar isu leegaysanaa. mg divided by cos theta waxay leegtahay mv square divided by r sin theta. halkan oo markaynu wixii xagal wata sin theta iyo cos theta-na aynu dhinac isku marino, quantity-yada kalena aynu dhinac isku marino, waxaa inooga soo baxaya sin theta over cos theta inay leegtahay mv square divided by r mg. At the same time markaynu mass iyo mass isku qaybino, halkan waxaa kasoo haraya v square times rg. sin theta divided by cos theta-na waa tan theta, marka taasina waxay noo cadeynaysaa tan theta inay leegtahay v square divided by gr. qaacidan waxaa loo adeegsan karaa marka la raadinayo xagasha ama angle intee leeg baa laamida kor loo qaadaya oo banker laga dhigaa si ay ugu socoto velocity la cayimay oo la isla garanayo. Okay, qaacidada waxaa kaloo ku raadin kartaa habka labaad ee aad isla qaacidadan ku raadin kartaa waxa weeye adiga oo quantity-yada hoose ama Fn sin theta u qaybiya Fn cos theta isla markaana centripetal force-ka oo dee Fc waxay leegtahay mv square divided by r, mv square divided by r taasi u qaybiya mg, yacni qaybtaadan hoose adoo qaybtaada sare u qaybiya, waxaa soo baxaya Fn sin theta divided by Fn cos theta equal mv square divided by rt oo loo qaybiyay mg. markaad isku jarjarto ama aad isku yaryareysona waxaa halkaa kaaga soo baxaya tan theta inay la mid tahay v square divided by gr ayaa halkaa kaaga soo baxaya. marka waa qaacido loogu talagalay in loo adeegsan karo centripetal si loo helo angle theta si loo helo ayaa qaacidatan loo adeegsan karaa. At the same time haddii xagasha aad qaadato oo taken for granted ay noqotana waxaad kaloo deedna u adeegsan kartaa si loo go'aamiyo velocity-ga la doonayo xawaaraha la rabo gaadhigu inuu laamida ku maro. oo marka dee laami goolada la sameeyo ee banker laga dhigo ee xagal kor loo qaado, tusaale ahaan oo kale wadaba la sameeyey waxa kor loo qaaday xagal 30 degree waxaan jeedaa matalan 20 degree oo kale kor loo qaaday, radius cayimana waa laga dhigay. xagasha waa in la calculate gareeyo velocity-ga la doonayo gawaaridu inay ku maraan, waana in loo sheegaa gawaaridii ama loogu qoraa wadadii xawaarahaasaad ku mari kartaa oo kale. The load speed on a circular path of radius 50 meters 50 km/h. What is the banked angle of the road for the cars to move without requiring friction? xawaaraha loo ogol yahay circular path wado goobaha ama circular oo radius ku yahay 50 meter waa 50 km/h.
waa maxay banked angle ama xagasha la qalloocinayo wadadaasi si gaariyaashu ay ugu socdaan iyagoon u baahnayn friction. okay, haddaad fiirsato waxaynu haysanaa radiuska wadada oo 50 mitir ah, velocity-ga loo ogolyahay gaarigu inuu ku maro oo ah 50 km saacadii oo u dhiganta 14 meter per second, iyo gravity-ga waxaynu u qaadanaa xagasha loo ogolyahay marka hore waxaynu qaadanaa tan theta equal v squared divided by gr oo ah qaacidada aynu ku heli karno angle-ka loo ogolyahay wadada in la qalloociyo. marka velocity-giina waynu haysanaa 14 meter per second baynu qaadanaa, gravity-gana 10, radius-kana 50. marka intaan ku bedelno 14 ka aynu isku weer garayno, labadana aynu isku dhufano, waxay noo soo baxaya 196 loo qaybiyo 500, dabeeto tan theta waxay leegtay 0.392. theta marka hadaba waxay ka dhigan tahay waa tan inverse 0.392 oo soo baxaya 21.4 degree. marka xagasha loo ogolyahay wadada in la qalloociyaa waa 22.4 degree. su'aala labaad, a circular road banked at an angle of 18 degree has a radius of 382 meter. wado circular ah ayaa la qalloociyay xagal ah 18 degree, wadada radiuskeedu waa 382 meter. at what speed can the cars around the curve without needing to rely on friction to provide a centripetal force? muxuu noqonayaa xawaaraha gawaadhidaasi ay goolada ama ay ku gooladeen karaan curve-ka iyagoon u baahnayn ama aan isku halaynaynin friction iyo centripetal force-kii. okay, sidii caadiga ahayd waxyaaba aynu haysano haddaynu la soo baxno, waxaynu haysanaa radiuska goolada oo 382 mitir ah, waa taas. waxaynu haysanaa angle-ka la qalloociyay goolada 18 degree. waxaynu haynaa gravity-ga, runtii mar haddii dhulka la joogo gravity-ga waxaa iska isticmaashaa 10 meter per second square. okay, si aynu u helno markaa speed-ka gaarigaasi ku mari karo wadadaasi, waxaynu isticmaalnaa un qaacida tan theta equal v square divided by gr. marka maanta waxaynu haynaa theta oo ah 18 degree iyo gravity-ga oo 10 iyo radius-ka oo 382. waxay naga maqan waa velocity-ga. okay, markaynu ku bedelno waxaan leenahay tan 18 halkii theta bad 18 dhigasa, waxay kula mid tahay v square ma haysatid, laakiin gravity-ga iyo radius-ka labadaba waad haysataa, qiimayaashoodii baad dhigasaa. then waxay kula mid noqonaysaa tan 18 waa v square divided by labadan hadii la isku dhufto waa 3820. labadani kulli way isku dhici, tan 18na qiimay leedahay, marka qiimaheedaad ku bedelaysaa. waxay noqonaysaa 3820 lagu dhuftay tan 18, marka labadaas isku dhacay ayaa inoo leeg v square. waxay inoo la mid noqonaysaa marka v square waa 3820 oo lagu dhuftay tan 18 qiimihiisii oo noqday 0.325. labada marka la isku dhuftay adna waxay ku noqonaysaa 1241.2. marka v square waa 1241.2. v oo keliya ta marka aad soo saaraysana waxay ka dhigan tahay waa intaasoo root-ka laga saaray oo noqonaysa 35.2 meter per second. marka xawaaraha loo ogol yahay ama marka laamida xagasha 18 degree la qalloociyo xawaaraha uu ku mari karo ee ugu badan gaadhigu waa 35.2 meter per second oo u dhiganta 126.8 km saacadii. waa xawaare aad u sareeya runtii, uma sabaahanayo wax frictional force ah.